وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta taariikhdu waa 8 bisha 6 2020 waxaan joognaa magaalada Kismaayo oo anigu ah Macalin Cabdullaahi waxaan rabaa hadduu Ilaahay idmo gurigaana arkaysaan waxaa degan gabar iska danyar ah arkaysan sida hooyadeeda waayeela eedadeed hooyadeeda wax dhalin hayso saasay tahay waxay haysaa mar labaad maama ayay xabiibo oo soo xanuunsatay oo gurigii aan u dhisnay laga soo waday xanuun aawadiisa cirbada u socdaane way haysaa oo way caawisaa oo daris bay ahaan jireen islaamnimo way u haysaa oo caawisaa ayay xabiibana way joogtaa gurigay joogtaa maadaama ay xabiibana la joogto marka waxaan rabnaa lacag yar ay soo baxsatay Safiye Sheekh Ibrahim Axmed inaan $50 aan siin ayay xabiibo meesha jiifto oo arki doontaan $50 gabadha lafteeda iska tawaalaysan si arkaysaan kareetay ku shaqaysataa biyo ay ku dhaamisaa marka insha Allah gudahan ugu galeynaa gabadhana waan wareysan doonaa axwaasheeda ayayna waan galin doonaa guriga degan yihiin kulli waan arki doonaa insha Allah raxmaan dhamaan inta salaam oo arkaysa fiidiyoo waxaan ka codsanaynaa inay maamadaasi waayeesha ee xanuunsan ee 100 jirka ah inay soo caawiyaan gabadha lafteeda masaakiinta ee hayso islaamnimada u hayso inay soo caawiyaan haatan gudaha u galeynaa insha Allah arkaysaanba gabadhan ayay xabiibo hadda hayso ee caawiso islaamnimada caawiso shaqadeeda waa aragtaan wadamarkaas ku shaqaysataa marna xaabadaas ay doontaa duurka u doontaa 3 maalin ay ku maqanta iyadoo dumar ah marna biyahaas ay ka shaqaysataa hoosteeka meesha biyahaas xaafado iyo biyo ka gabataa wadamarkaas ay biyo ku soo dhaamisaa marka qof iska duruufaysan waxa haysan saasay taa dad waxay haysaa waayeela ah sida hooyadeeda kale eedadeeda waxba aan dhalasho hore u sheegaba marka ila hadda waa barashay ka bilaab doona insha Allah raxmaan halkan arkaysan waxa degan eedada degan halkan arkaysan eedadeeda degan hadda way jiiftaa qof xaq istaag arag najif waa eedadeed gabadha eedadeeda waligeed wax ma dhalin insha Allah raxmaan gabadha waa tan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. خير ومامي بالكور أي حبيبة حال جاي الكور. هاي عاد كور قاد وخير. هي هذا وحنا. أنت كنت تصومه؟ أنت كنت تصوم. أقف أنا كنت إن شاء الله. وأنا قال لي دونا إن شاء الله الرحمن وحكربه. أدي حالة الكور وشقة الكور محقبتها. أنا قد بيان دامنا بكراتين بيكون سنة كراتين وإذا جبت. حاجة على كراتين إن شاء الله. وحنقول سنة سنة وبريها دشان قدامنا. دشان قدامنا جرجامة. جرجامة ما سقسو قدامها. جرجامة تكون هذا. وحكلو بيل إيميل كان إيميل ملا. ما وحيد من الحوار كتبوا لي وهنا جيت كان كاسن إن شاء الله إلهي هكو عاويو. قبل ريرا صفي إبراهيم أحمد. يا العكس صوص دقيقتي كنت دور كسير إن شاء الله الرحمن صفي مركا وقبل مسكح نصنت هذا وعرف أنا أدعي سو قبل هسي الله يعافيه وأدعي كنت كدور إن شاء الله وقبصه صفي إبراهيم أحمد يكون سوديتي أدعي صفي إبراهيم أحمد وأنكو دعي دعاء قرية الله قوة شفاعة إنسان كان قيام الله قوة بدل كذا الله قصي وغير قبل ما شاك سوق الله قوة سوق إن شاء الله الرحمن لما أنت إسلام وفي أركز في ذي وأنا حكوا عصنا يا جماعة أو بس كتب على سن تصق ويا لها يسوع قبضنا هواي دواي ما تقدروا يدي وهاي أقل كاس في التوار كيسان كورة توا إسلام كاس إستنوري ساسي عندنا أساس أي حبيبه وقولي أول سنة أركز وماشي حاجة ومال إسكندور البدأ وسعودة أيضا عاوزه ويصود مركي حنون ستبه ويصود أنت كنت هالكن وحاولنا أي حبيبه هالكن كجرته يقبل يدي يا وقلنا إن شاء الله ورحمة السلام عليكم سلام الله يا هاي الحمد لله أيه ما في عنتها عفماتك ورد هاي ساعتها هاي وقرتي دواء وسعته ما شاء الله دواء كوسعته هاي قبل أكتر لو كان حقي وحاجة داودي كفوقتي سوما واقرتي إن شاء الله مقصوب بوقني
gabadhii Safiya Ibraahin Axmed waa taqaanaa Safiya hadda kor oo guriga kuugu imaan jirtay lacagtan ku soo dhiibtay $50 waay insha Allah rahmaan ayay waxay tiri iigay hay soo duceyso marka u duceey hoo qabso lacagtan Allah u daliyo amiin waa u duceeyaa wii maalin duceeyaa amiin ilaahay ma buridahay daan waxa leeyahay waxa ka soo xilaa ilaahay waxa jira wado amiin ilaahay qotay amiin doorteed waa u duceey amiin ilaahay inaysi bilahi ma ilaha ka qaaso amiin bas ma bilahi ma Allah ka dhigo amiin dad maqal ma wiidaay saaro male amiin waa u duceey amiin الله أكبر آمين إن شاء الله الرحمن واركيسان مامدا يا حبيبي واي ويحنوسن تاي gurigeed waa laga soo waday gabadhaas iska masaakiinta ee dulsaar oo ay ku tacarbada u socdo waa lagu ciilan doona guriga xataa waa ka dumay deerkii yaa ka dumay dabeel xoogana socoto deerkii waa dumay sida had xal la sheegay insha Allah inaad soo caawisaan xataa waa idin ka codsanayaa oo cid alaal cid oo soo waa qofkaas nooca u yaala ee xanuunsan dad aan lahayn gabadhana dad u ah gabadheedu waa tan ag fadhido way soo booqatay hadda guriga xaqii xal seexatay way soo booqatay marka dhamaan insha Allah rahmaan inta islaam oo arkayso waxaan ka codsanaynaa in maamada la soo caawiyo anigu ah Macalin Cabdullaahi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.